الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن oo wanaagsan dacwadayaal waa mar kale iyo barnaamijkii wararka toddobaadka Soomaaliya barnaamijka qodobo kala duwan ayaan ku soo qaadin doonaa toddobaadkan gaar ahaan arrimaha ku saabsan abaaraha guud ee ka jira waddanka Soomaaliya arintaas oo si gaar ah xoog u saari doono gaar ahaan abaarahaasi si wax loo qaban karo ayna daawano barnaamijka haatan xaalad abaareed oo aad u ba'an ayaa lagu soo warramayaa inay ka taagan tahay waddanka Soomaaliya gaar ahaan gobolada dhinaca koonfureed ku yaala iyadoo abaartaasina ay saameysay dad aad u fara badan oo waayeel ah Aamina Aadam ayaa ka mid ah dadka abaartaasi ay saameysay waxaana sheegtay inaanay haysan wax ay cunto iyada iyo carruurteeda kuman kun oo qof ayaa qaramada midoobay ay sheegtay in ay haatan la soo dirisay xaalad abaareed oo aad u ba'an halkani waa kaamka Jazeera ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho kaamkan oo gacanta ku hayaan xoogaga al-shabaab ee gacanta ku haya magaalada Muqdisho waxa ay sheegeen in ay ku quudiyaan dad aad u fara badan raashin fara badan ayaa dadkani lagu quudiyaa iyadoo xoogaga shabaabkuna saraakiil ka tirsan ay dadkaasi u quudiyaan si markaasi saf intii dadka la geliyo siyaabo kala duwan raashin loo kala siinayo Cusmaan Cabdillaahi oo ka tirsan horjoogayaasha al-shabaab ayaa ka warramaya annagu waan u qabanayna insha Allah ta'ala maalmahan bilownay takaaful ijtimaaci ilaa 70 kun oo qof ayaa qaramada midoobay ay sheegtay inay barakaceen oo ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah halka 2.8 milyan oo qofna ay haatan la soo diristay abaar aad u baahsan abaarta iyo nafaqa darrida xoogan ee haysata carruurta Soomaaliyeed xilligan ayaa la sheegay inay tahay tii ugu darnayd muddo 60 sano oo ka dhacda dalka Soomaaliya Nicholas Wasanwa oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda la yiraahdo World Vision ayaa ka sheekeynaya qaabka dadkaasi ay markaasi u gargaarayaan and the elderly gentleman whose house we're in now the impact is severe we need to do much more especially in waxaan doonaynaa inaynu samayno xaalad badbaado oo degdeg ah oo aan si degdeg ah u samaynayno because these scenes we should never see again qaramada midoobay hay'adda u qaabilsan dhinaca qaxootiga waxa ay ka shaqaysay in shantii carruur ah ee ku sugan Soomaaliya mid ka mid ah uu qabo nafaqa darro waxaana sidoo kale dadka jilicsan oo waayeelka ay noqdeen kuwa ugu badan ee ay abaartu sida ba'ani u saameysay carruur fara badan oo nafaqa darra ka muuqato ayaa meel kasta ka muuqanaya kani waa kaamka xerada qaxootiga ee Dadaab waa kaamka qaxooti ee adduunka ugu weyn waxaa la qorsheynayay in 90 kun oo qof ay halkani ku noolaadaan laakiin maanta 350 kun oo qaxooti ah oo qof ayaa halkani ku dhaqan waxaana dadkani badankoodu ay ka soo hayaameen gobolada koonfurta Soomaaliya kaamkan oo ku yaala waddanka Kenya gaar ahaan dhinaca bari ee xuduudda Soomaaliya waxa hay'adaha quudinta ka geysanaya kamid ah hay'adda la yiraahdo MSF Emilia Kasangar oo ka tirsan hay'adda Médecins Sans Frontières ayaa ka sheekeynaysa xaaladda ay halkani dadka qaxootiga wax ugu gargaarayaan You have several stages of malnutrition. Some of them are in severe condition, and if they don't join immediately your program, they might die. waxaynu aragnay ilaa ay xad fuuqbax carruurta ku dhacayo waxaynu wajihi karaan xaalad dhimasho malnourished, and then they face the same risk of dying. halkani waa qaybta quudinta dadkana waxa ay u soo qaateen in ay weelashani ku gurtaan raashinka quudinta waana meel aad noloshu aad u adag tahay iyadoo dadkana safaf dhaadheer la gelinayo ayaa waxa ay ku jiraan in dadka la quudiyo oo markaasi gargaarka kala duwan la siiyo kaamkani oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho waa mid kale oo ka mid ah kaamka qaxootiga waxaana halkani ku jira dad aad u fara badan iyadoo dadkaasina ay xaaladoodu tahay mid aad u halis ah oo nafaqa darri baahsanin ay ka socoto gobolada koonfureed gaar ahaan galbeedka Soomaaliya waa galbeedka koonfureed ayaa dad fara badan ay hadda ka soo jabeen waxaana la soo sheegayaa in ay xeradani qaxootiga ee Dadaab ay maalin kasta taagaan dad lagu qiyaasay tiradooda 1700 oo qof bishii Juun oo kaliya hay'adda qaramada midoobay waxay sheegtay in kaamkani ay yimaadeen dad gaaraya 30 kun oo qof waxay u soo galeen socod aad u dheer oo waliba maalmo qaatay 100 kilomitir ayay dadkani soo jiireen si ay u helaan nolol waxay soo gaareen xerada qaxootiga ee Dadaab halkanna waxaa ka muuqanaysa dad isugu jira carruur haween iyo dad da'
iyadoo qaarkoodna ay ku qaadato muddo aad u dheer inay halkani ku soo gaaraan sida Maryan Cabdilaahi oo wadata 5 caruur oo sheegtay in ay hadda 3 maalmood weli la diiwaan gelin ayna saf dheer ugu jirto in la diiwaan geliyo dadkani nolosha adaga ay imika haysato waxa la sheegay in tahay xaaladii abaareed ee ugu baaneed ee soo food saarta dalka Soomaaliya iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay in xaalad aad u adag oo dhinaca abaarta ay Soomaaliya ka soo fool leedahay waxda amuraha dibadda waddanka Mareykankana waxay ka shanqarisay in abaartani ay noqon karto mid ugu baaneed ee ka dhacda Afrika iyadoo haatan la soo sheegayo in dad fara badani ay u geeriyoonayaan xaalado nolol xumo ninkan waxa uu kamid yahay dadka safka dheer ugu jira in ay xitaa diiwaan gelinta helaan waxaana uu wataa caruur nafaqo darro ay ka muuqato wal qaraabe sidii ma wal hatta inta loo sii ma jira xaaladda murugada waxay tahay iyadoo dhawaan qalabka warbaahinta laga wareystay haweeney Soomaaliyeed oo sheegtay in 4 caruur ah oo ay dhashay iyadoo ay u jeedo ay dhinteen kadib markii gaajo ay u dhinteen sarkaalkan oo lagu magacaabo Antonia Frodofakis oo ka tirsan hay'adda leerada Ministeerka Safaaqoontiye ayaa san ka sheekeynaya xaaladdan halista ee dhinaca cunto la'aanta baad la'aanta iyo biyo la'aanta ee ka taagan gobollo fara badan oo ka tirsan Soomaaliya iyo weliba xerada qaxootiga ee Dadaab the answer in terms of humanitarian aid is really not satisfactory at the moment, and MSF is really hoping this will improve in the coming days, weeks, but ASAP, immediately. waqti badan ay qaadan kartaa in dadkan la caawiyo jawaabtu gargaarkana runtii ma aha mid dhameystiran xilligan la joogo laakiin waxaan rajaynaynaa inay noqoto mid tayo leh maalmaha usbuucyada soo socda goobtani oo ay dadkani ku sugan yihiin ma ahan goob xitaa dhaxanta celin karta sida arkaysaana dabayl xoog leh ayaa socota waxaana dabayshaasi ay diiratay cooshadaha ka samaysan bacaha iyo weliba waxyaabaha kale iyadoo dadkaasna ay markaa halkaasi kula sugan yihiin xaalad aad u adag oo nololeed oo aad u liidata iyadoo dadkan haddana la siinayo quudintani ayaa haddana dadka ka shaqeeya quudinta waxa ay sheegayaan in abaartani ay tahay tii ugu darneyd sida ay ku waramayso Gamala Xuseen oo ka shaqeysa qoob quudin oo ku taala xerada qaxootiga ee Dadaab waxaana ay sheegtay in abaartii ka dhacday waddanka Soomaaliya sanadkii 1992 ay ka daran tahay mid haatan aloosan waxaana markaasi la soo sheegaya in la'aanta iyo weliba cunto la'aantu ay tahay mid aad u dheer waxaa kaloo dadka markaasi dhibaato ku haya dawo la'aan iyo weliba iyadoo aanay markaasi ku filnayn gargaarku qaramada midoobay waxa ay sheegtay in dad aad u fara badan oo weli aan la diiwaan gelin ay jiraan odagani waayeelka waa iska qanacsan yahay xaaladda uu ku sugan yahay dadka qaxay ee ka cararaya abaaraha iyo dagaalada ma aha gobolada koonfureed oo kaliya inay gaareen magaalada Berbera ee ku taala waqooyiga Soomaaliya ee maamulka la magac baxay Somaliland ayaa ka mid ah meelaha dadku ay u barakaceen kaamkani qaxootiga ee ku yaala duleedka magaalada Berbera ayaa ka mid ah goobaha loo qaxay Ruqiye Axmed oo sidata ama wadata 8 caruur ayaa ka sheekeynaysa nolosha ay la soo carartay ee ku jihaysan badbaadada ilmaheeda waxaana ay degan tahay kaamkani cooshadaha ka samaysan ee ay nolosheeda ku maareynayso sababta dabadeedna waxaan wataa 8 ciyaal waxaa markaa halkani quudin ka wada hay'adda UNICEF oo dawooyin iyo weliba arrimo caafimaad u fidisa Saalu Aadan oo ka shaqeysa xaruntani quudinta ayaa sheegtay in halkani maalin kasta ku quudiyaan dad aad u fara badan saraakiil ka tirsan qaramada midoobay gaar ahaan hay'adda UNICEF sida haweeneyda la yiraahdo Helen Johnson ayaa booqday kaamkaasi waxaana halkaasi ay ku soo aragtay dad aad u fara badan oo dhibaato haysato iyadoo ah agaasime ku xigeenka hay'adda UNICEF ayay ka sheekeynaysaa xaaladdu sida ay tahay absolutely means that people can lose their lives children can lose their lives they will not survive without our assistance dadku way dhimanayaan xitaa carruurtu way dhimanayaan dayna badbaadadayna aysan helin